ummadda waa la baabiyey waa la bahdilay waa la gumeeyey si aan caadi ahayn ayaa lagu sameeyey waxa ku sameynayeen wuxuu ahaa maamulka ka jiray markii oo Soomaalida ahaa Cabdiiley iyo lii booliskiisa iyo dadkii maaragtay dawladdiisa ka shaqeynaysay waxa loo soo dhibay oo nimanka Tigray general Tigray soo dhibay bay ahaayeen si laakiin hatta Tigray inuu hirgelin lahayn baa isagu hirgeliyay ummaddaasayto sida loo galay si loo oran karo saah ku sii jireen ma aha jariimo aan loo geysan oo Ilaahay inta ma jirto marka xurriyadoodan hadda ay intan hatta ku gaareen ma dhacdeen haddii Cabdiiley meeshii uu jooga dad markasta la haystay aan lahayn dad maaragtay gumaysi aanan caadi ahayn oo taariikh Soomaali soo marin lagu hayay bay ahayn ninkan Mustafa la yiraahdo waa nin Kenyaanka aqoonyahanka Kenya degan inta badan way garanayaan haddii la yiraahdo aniga la oran lahaa halko qof oo isleedahay maanta uu ka bixi karaa xilka asaga waa kuma Mustafa ma dhiraa actor ma dhiraa waayo waan markay u yartahay inta joogo markuu xamar ka shaqeynayo aan acha uu shaqeynay toddobaadkii markay u yartahay mar yalla waan sarkin waxay sidaa tahay waxa weeyaan nin hadda maanta argosashay waxa aan ku dhaqaaqaynin walaalkii aabihii u dhalay iyo aabihii baa inta la qabtay oo gaari la geliyay maxaa Mustafa waa ka hadlayo dhibka dadka lagu haya laga daayo ya baabuurkii midna hore laga geliyay midna gadaal laga geliyay wiilkii inta laga tuuray baabuurka oo la dilay meesha lagu dilay meydkiisa la soo saaray lagu soo celi gaari yaa la yiraahdo waxa tiraahdaa la hadal jiraayidka waxa tiraahdaa wiilkayga sa gaari iska tuuray waana mid ugu fudud ka saaba si silcaan u dhiman kuwa silcay ee gaajada u dhinteen cadadii xisaab minna malaha antana waxaan isleenahay nin hadda kaga haboon Mustafa shaqadaas loo dhiibay ma jiro ana idin sheegay taa igu qabsada aniga insha Allah biidhnillah albaari bismillah walaal aad baad u mahadsan tahay marka hore waxaan u hambalyeeynaa madaxweyne Mustafa marka xigta waxaan eebo uga bariyaa inuu u saalo xilka xaqana garansiiyo walaal hore uma aanan aqoon madaxweyne Mustafa laakiin waa nin dhalinyaro ah waa nin doonaya sida iga muuqata isbedel dhab ah qodbadiisii shalay waxa iga muuqday hawo cusub iyo hididiila hor leh madaxweynuhu wuxuu ku sheegay qodbadiisii dhowr arrimood oo runtii muhiim u ah maamul wacan waxa kamid ah xaqsoorka xuquuqul insaanka iyo xuquuqul qowlka madaxweyne Mustafa runtii si uu ugu guuleysto inuu horseedo isbedel dhaba waxa ay tahay inuu xoog saaro saddex arrimood oo aad u nugweyn arrimahan waxa kamid ah kow in uu toleeyo dadka ama hoogi halaaga geystay ama loo geystay ururada siyaasadeed ee ka jira gobolka iyo dawladda federaalka midda labaad oo ah sidii kula shaqeyn lahaa siyaasadda gobolka cusub iyo dawladda federaalka iyo midda saddexaad oo ah sidii uu u yegleeli lahaa nidaam hufan oo daacadnimo iyo maamul wanaag ku shaqeeya saddexdaas arrimood ayaa madaxweynaha hor yaala runtiina waa saddex arrimood oo adag weeye oo u baahan istaraatiijiyad cusub iyo jiha cusub marka walaal waxaan rajeynayaa in madaxweyne Mustafa uu ka soo baxo arrinkan ma sahlana waa isbedel u baahan in si geesinimo leh loo wajaho in wax badan oo hore u qaldamay la saxo arrinkaasuna waxay ku xiran tahay hadba sida dadka Soomaalida ah loo mideeyo sida looga shaqeeyo midnimadii wadajirka midnimadu waa xoog weeye haddii dadku Soomaalida ay midoobaan runtii way la xisaabtami karaan dawladda federaalka ama dawladda Addis Ababa way la xisaabtami karaan marka waxaan rajeynayaa in isbedelkan uu noqdo mid dhab ah oo xalaal ah